عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan uga mahad celinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo galabtay finaalkii koobkii Ramadaankii noo bilowday gabagabadiisii si nabad ah noogu qabsoomay. Ilaahay baa ku mahadsan. waxaan halkan uga mahad celinaa dhammaan tiimamka ka soo qayb galay iyo labadii koox oo timid finaalka oo koobka ay ku guuleysatay kooxda Utura. waxaan leeyahay waad wada guuleysateen koobka ujeedadii iyo wixii aan u furnana waxay ahayd saddex galka dhalinyarada in dhalinyaradu isku barato waana ka guul gaarnay idinkuna qayb ka midna koobkay ku guuleysatay qayb ka midna biladay ku guuleysatay sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinaa guddigii jaaliyadda galmudug ee igala soo shaqeeyay in maarta koobkan uu qabsoomo oo waliba waqtiga badan iyo juhdiga badan galiyay waxa qabadkeenu intaan kaliya ma sii ahaa doono horena waxaan u soo qabanay kulan aqooneedyo marka waxa alxamdulillah ballanqaadyadii aan ka ballanqaaday habeenkii caleemasaarka ardayda jaaliyadda iyo dadkii soo qayb galay inta ugu muhiimsaneed inaan ku guuleystay waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa ardayda jaaliyadda galmudug oo ayaguna aad iigu taageereen xilkan iyo mataqaanaa iyo arrintan aan ka soo baxo aad iyo aad u mahadsantihiin guuleysta in leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka hambalyeynaa halkan galabta ciyaartooyda halkan ku dheeshay labadii tiim ee halkan ku dheeshay koobka finalka ah ee jaaliyadda galmudug ay qabatay oo agaasinkeeda lahaa gudoomiyaha jaaliyadda galmudug saaxiibkay Cabdiraxmaan Jeero oo aan kamid ahay tiimkiisa bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Allah ya mahad iskale marka hore inoo soo gabagabeeyay maanta si nabad ah koobkii aan ugu talagalnay bisha Ramadaan oo maanta finaalkiisa aan ku soo gabagabeynay halkan inta kadib waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Xirsi Jeero oo soo qaban qaabiyay koobkan quruxda badan leh oo maanta halka inoogu soo gabagaboobay sidoo kale guddiga sportiska maxay ahaayeen dhamaantood waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin anagoo ah Utura teamna waxaan leenahay tiimka ugu adag baan ka midnahay Bagaalisha ku nool koob badan oo dambana waan rajaynaynaa insha Allah inaan qaadno assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan salaamayaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Jeero oo isaguna والله هول أدق قبتي وأنا دي أدق أو هوشي ده أنا أرضي ماشى وإيمانه حتى ده وقت يسيو بدنا هالكن قليل سجنا هالكاس سلامة يا كل أنا وحنا يعني النادي لقى قاعدين ها كل بديا وبهذين كل أنا أنت صنعنا وحارن كرا وحوها كوب ووري وفير بليا أو لو قبت بقالش ولي وسنا بدنا وقت الله ماذا تاسنا ما هدي وحشكله عبد الرحمن جاري لما أنت كلا شقيسي هذه هذا ما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله والسلام يا magacay waxa weeyaan Filibin Ali Xasan oo ahaa tababarihii kooxda ku ciyaarayay magaca Utura waxaan marka koowaad u mahadinayaa Ilaahay oo inoo suurtageliyay ciyaartaas si nabad ah oo deganaansho oo guul ay ku dhamaatay marka xigta waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha jaaliyadda ardayda galmudug ee Bangladesh Cabdiraxmaan Jeero iyo tiimkiisa oo mataqaanaayay shaqo aad u fiican qabtay oo mataqaanay lagu bogaadiyo lagu hambalyeeyo mar labaad waxaan leeyahay hambalyo shaqo fiican baad qabateen Bismillahir Rahmaanir Rahiim awal Ilaahay mahadle oo maanta soo gabagabeeyay koobkii Socday jaaliyadda galmudug Socday waan hambalyeynaya maxaa la dhahaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Jeero iyo guddigii kaleba waan hambalyeynaya iyo kooxdii koobka qaatay iyo kooxdii laga qaaday oo anigu ku jiray oo coach aanu ahaa Bismillahir Rahmaanir Rahiim wassalatu wassalamu ala rasuulillah anigoo ah kabtanka team Garoonbuuro magacaygu yahay Cabdinaasir Xaashi Cigalle galabtan garoonka waxa ka dhacay ciyaar la wada filayay insha Allah waxa rabay inkastoo guusha dhankayga aan hamigaygu ahay laakiin badiyaa waa bahdeena waxa idin leeyahay guul iyo gobonimo halkiin ka wada waan maasantiin insha Allah أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مقعي وعلي يوسف على سعود علي أنا وقوى الله مقع رفريدة وحنا لكن هم بلي بلارن وقدر يا جاليدة صومالية قلمدوك دلك بنغلاديش وجوه الرئيس قدومي عبد الرحمن حرسي جارو وقرب كي بيحتاجن ولكن غالي أمرنا صاحب كي غالي يجودي ومتقانا هولا وحرسالي يجودي سبورتيجا يجودي مالية أو سقور دان أو سوقبتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركب كوبادي الله بمهدله marka labaad dhalinyarta halka isku timid oo lambar 2 ka yahay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Xirsi Jeero iyo gudida qabanqaabada koobka aad iyo aad baan ugu hambalyeedayaa jaaliyadda galmudug ee wadanka Bangladesh hawsha iyo hawlkarnimada ay sameeyeen dhalinyarta isku keenay sportska iska dhaxgalka u sameeyeen aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waana jaaliyadda aan sooran karo waa jaaliyadda ugu wax qabadka badan leh marka hore Ilaahay baa iska mahadle isku keenay halkan inaga caafimaad qabna koobkan inuu dhameeyay inaga caafimaad qabna waxa ugu horeeyay loo mahad celiyay horta Ilaahay ka soko waxaan mahad celinayaa gudoomiyaha jaaliyadda galmudug Cabdiraxmaan Xirsi Jeero oo ahaa qaban qaabiyay koobka iyo dhammaan hawlwadeenadiiba
waxaa kaloon mahad celinayaa dhammaan siidhwadaha iyo calanwadaha igala qayb qaatay aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxaa kaloon mahad celinayaa dhammaan guddida qabanqaabada hawshan waday waxaa kaloon mahad celinayaa kooxda koobka ku guulaysatay oon leeyahay hambal